halkani waa garoonka Salisbury ee gobolka Salisbury waa goobta uu ka soo degtay daqiiqado ka hor Umar Cabduqaadir Cartan oo aad wada garanaysaan nasiib xumo waxa isbedelay jadwalkii imaatinkiisa dad fara badan oo taageerayaal ah oo Soomaaliya waliba ajnabi iskugu jiro ayaa sugayay sidan aanu ku haynay jadwalka wuxuu ahaa inuu soo degto 18 iyo barkii laakiin nasiib xumo waxa ka soo hormartay diyaaradii waqtigeedii waxaan ku suganahay waa garoonka Salisbury magaalada Salisbury waxa ila taagan waa saaxiibkay Alteso dabcan Alteso social media iska naqaanay laakiin maanta si live aan isku aragnay Alteso waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad Soomaaliya inta nooga timid waliba aad ka mid noqotay dadka organizer-ka ah ee waliba soo dhaweynta legend Umar ka shaqeeyay sidee dareemaysaa imaatankaaga dalkan Austria qaasatan magaaladan Salisbury oo ah magaalada dalxiiska walaal waa maasan tahay adiga iyo teamkaaga iyo Soomaalida halkan ee ku sugan magaalada Salisbury ee dalka Austria runtii Umar Cartan waa uu soo degay si qurux badan loo soo dhaweeyay wuxuuna dhaxdhaxadin doonaa saaka warqabtaan ciyaarta finaalka koobka UEFA Super Cup ee sanadkan 2026 oo u dhaxayn doonta kooxaha Paris iyo Aston Villa wuxuuna noqonayaa garsoori ugu horeeyay oo Soomaali ah ama Afrikaan ah ee dhaxdhaxaadiya ciyaar ka tirsan qaaradda Yurub marka waxay ila tahay Umar Cartan rajadiisa way fiican tahay waana garsoore heer caalami ah oo aad u wanaagsan oo professional ah magaciisa kaliya ma watay magac Soomaaliya ayuu huwan yahay waxaan rajaynayaa in dadyowga Afrikaanka ah iyo kuwa kale caalamka halkan ku sugan ay isaga dartiis u yimaadeen Soomaalidana meel walba joogaana sidoo kalena ay taageeri doonaan marka waxay la tahay in walaalkeen Umar Cartan aan focus ka saarno ciyaartaas taariikhiga ah waxa ogeydeen in Mareykan laga soo celiyay si qalad ah adduunyadana uu haatan tusi doono in ciyaar koob adduun ka tirsan sidoo kalena maanta uu ciyaar finaal ah oo koob weyn oo caalami ah oo ciyaar xasaasi oo aad u weyn inuu dhaxdhaxaan doono marka waxaan leeyahay dhamaanteen aan taageer waa maasata sideeta dareenkaaga maanta soo dhaweyntiisa dareenkayga saaxiib maanta lama soo koobi karo aad iyo aad u faraxsanahay waxaan ku dhahay magaalada maanta suxuurteeda way kacsan tahay anigoo matalayo dadka magaalada Salisbury dhalinyarada ciyaalka xaafadda saaxiib maanta hadalka xataa waa wax ugu qiyaas ma garanayo waata aad baad mahadsan tahay waxaan ku suganahay waa garoonka Salisbury ee magaalada Salisbury waxa si toos ah barnaamijka idigu tabinay waa anigoo ah wariye Indos xagga cameramanka waa cameramanka Hiran News Agency waxaan rabnaa sidoo kale intaan ka bixin mid kamid ah asxaabta ku sugan garoonka inaan wareysi kala yeelano waxa tahay dadka waqti hore yimid adiga oo shucuurtaada u marinaya wakaalada wararka ee Hiran News Agency maxaad dareemaysaa عمر هرتا ديارتي سو هرمرتay inkastoo diyaaradii soo hormartay anaga inta waxa imaanay 12 saac 18 ka imaanay 18 bare imaarad 18 ka imaanay alxamdulillah markaan aragnay anaga video wax waana anaga dhaw ku wada boodnay waxa leeyahay waxa rajeynaa Soomaalida Austria joogto khaasatan gobolada qaas Salisbury dadka meesha kuna waxa idinka codsanaa ina dhamaantiin oo imaatiin garoonka caalamada Soomaaliya soo wada qaadatiin aan soo wada buuxsan insha Allah waxaan hadda isla garoonka Salisbury aan kula kulmay Sultan Maxamed Sultan Yusuf oo kamid ah nabadoonada gobolkan Salisbury ee magaalada Salisbury nabadoonka ku soo dhawow wakaalada wararka ee Hiran News Agency iyo barta wariye Indos shucuurtaadu maxay dareemaysaa Umar inaad ku soo dhaweysaan Salisbury ma sha Allah shucuurtay shucuur aad iyo aad wanaagsan weeye Umar nin aad iyo aad u qiimo badan weeye waa nin dhalinyaro waa nin Soomaaliyeed halgan dheer iyo taariikh dheer ba ku leh runtii waxaan u mahadcelinayaa Indos waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Austria oo dhan oo qaybo kala gedisan ka timi sharaf been oo nootayna airportka magaalada Salisbury ee dalka Austria aan ku soo dhawoonay si sharaf iyo qiimo leh jaaliyadana waan u mahadcelinayaa ugu dambeynna wakiilka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub mudane Cabduqaadir Qooje oo ahaa isku xiraha dhammaan howlahan ayaa noo suurtageliyay inaan dhiirigelin iyo wareysi ugu tagno Umar Cabduqaadir Cartan waxay ahayd sheekadiisa mid u baahneed in buug laga qoro waxaase ku soo koobay xigmadii ahayd naafada la sheegaa lixaadkoo nusqaamiyo ogow naaqus ma ahee waan qofka nidaam iyo noloshaba u dhigan yool